waxay aad baad u mahadsan tahay magaalada baydhabo way fiican tahay nabadgelyo ahaan iyo dad ahaanba aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaataana kama jirto waayahay mudane wasiir waxaad faahfaahin iga siisaa dhinaca wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marka laga hadlayo waa sidee xaaladda wasaaradda iyo shaqadeeda wasaaraddu awal wax ka abuurnaa ma jirin laakiin hadda waan kicina waan abuurnay xafiiska waan furnay berrito waxaa seminaar aadaya agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka iyo koox ganacsataa oo xamar seminaar kusoo galahaya hawlaheediina waan dhaqaajinay waxaanu keenay shahaadooyinka ay qaadan lahaayeen ganacsatada ama kabeli ha noqdo ama wasad ha noqoto ama xawaalad ha noqoto wixii oo dhan waan soo daabacno waan keenay waxaan u sheegaynaa dadka reer baydhabo marka sharciga inay soo doontaan oo iska daayaan meelaha kale luuqluuqa wax laga soo qaadanayo mudane wasiir marka aan ka hadlayno dhinaca wasaaradda oo kale wasaaraddan tan iyo markii waxa ay kamid ahayd wasaaradii ugu horeeyay ee koonfur galbeed ee la magacaabo welina waxaad moodaa in weli aysan yeelin xarun ama xafiis ay wasaaraddu ku shaqayso maxaa qaldan waxa weeyo dee wasaaraddu ama hadda bil baan ku magacaabnahay bad ciddii iga horreysay laakiin waxay ka qabatay ma jirin laakiin hadda xafiiskeeda waa furnay wuxuu ku yaalaa bayboroteed meesha xafiisyada dawladda ay ku taallaan xafiiska ayaa laga furay dadkuna halkaasay ugu soo haayi karaan wixii ganacsiga ay oga baahan yihiin ayaanu shir waxaan u aadnay jambaradiisa haye ee xamar si qaybta koonfur galbeed loo helo kaana waan kusoo guulaysanay oo meel baan soo saarnay hawsheeduna si fiican bay u socotaa hadda waayahay marka wasaaradda markii hore maxaa keenay inay dhaqaaqi weyso oo xilligan ay dhaqaaqdo wallahi waxaa fiican dadkii dee markaa loo magacaabo in lagala xisaabtamo waxaan ka hayno xitaa dukumiintia iyo meel la fadhiisto iyo waxay dhaqaajiseen nina ma jirto haddase annagu waxaynu ku guulaysanay inaan ganacsadii la kulanno jambaradii la kulanno kuwii xamar la kulanno wasaaraddii maxaanku dhaha federaalka ee xamar aan sharciyadii kasoo qaadno wixii oo dhamaystiranna aan keenno si loogu shaqeeyo dadkoo loogu adeego waayahay reer baydhabo ma laha sida aan filayo wasaaradda ma laha wada shaqeyn lama laha wasaaradda marka sideed ka yeeli doontaan taana taa waxaa weye shir baanu iclaaminaynaa ganacsiga baydhabo iyo anaku iskugu imanayno oo maxaanku dhaha mas-uuliyiinta gobolka iyo tan degmada iyo taliyaasha sabriyada booliska iyo kulli aan kasoo qaybgelin doono waana wada shaqeynaa hadda reer baydhabo shaqada anagu inkastoo wakti dhow aan shaqo bilownay haddana hadda waan wada shaqeynaayo ma xuma yani xaaladda anada wax xumaana ku jirta madaxa marka laga hadlayo wasaaradda ganacsiga waxay abuurtaa misena wada shaqeyn la leedahay warshado ka jiraahe ama hay-ad oo ganacsatadu ay leeyihiin ma jiraan ganacsato aada la kulanteen oo ku midaysan dalad oo aad ka wada hadasheen arrimaha ganacsiga iyo sidii loo horumarin lahaa deegaanada koonfur galbeed waa jiraan sidaad og tahay koonfur galbeed waxay leedahay jambar dhisan oo maxaanku rahdaa rugta ganacsiga ah oodaa rugta ganacsiga marka dhammaantood waan aragnay madaxdeeda iyo maxaanku raha xubnaheeda ku jiraba sida guddoomiyaha maxaanku rahdaa rugta ganacsiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ka koowaad afhayeenka xogeeyaha kulligood waan kulanay wax fiican baana meesha ka dhignay waxaana rabnaa shirweyne inaan ku qabano bishan haddaan maxaanku rahdaa bilanaysa gudaheeda inaan shirweyne qabano ganacsiga koonfur galbeed oo dhan aan isku keenayno kan shabeellaha hoose ka bakool iyo ka bayda marka rugta ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed weli maan maqal marka halkey ku yaalaan rugahaas aada sheegtay rugta ganacsiga ee koonfur galbeed way jirtaa waxbaa si qaldanaa wixii ku qaldanaana waan saxaynaa dib baana loo habeynayaa waxaa guddoomiye ninka la yidhaahdo axmed macalin oo guddoomiye ku-xigeenka ka ah rugta ganacsiga ee qaranka maxaa guddoomiye ku-xigeen waxaa ka ninka la yidhahda adduunka maxamed cali adduunya ka waxaa ka maxaanku rahdaa milaaq maxaanku rahdaa buume xafiis weyn bay xamar ku leedahay oo nagu martiqaaday oo na geeyeen halkana xafiiskii waa laga furayaa hadda qalabkiisa la soo qaadaya marka dhibaatooyin wax kasta marka la abuurayo daban dhibaatooyin ayaa lagala kulmaa idinka marka wasaaraddan maadaama markii ugu horeysay aad hadda qalab u samaynaysaan ama aada dooneysaan inaad dadka kusoo xirtaan sidee idinkii ganacsatadu isku fahmi doontaan annagii ganacsado waan isfahmaynaa dadku wax u shaqeeyay u baahan yihiin hadal in laga shaqeeya maaha
يعني وحرور ودبا إلا تصيء باهيهن وحن صاع أمورنا وصاع دابعني فتودي حمر لو دونن هي كبرواش اللي ودي وانجلنا هي وانجلين كذي وانكرنا شعبي وانكرنا قفل بمقابل كرو أفرنا ومحن كرا جناستو كونفور قلبه shaqada wasaaradda daban sida aan filayo qof waliba shaqadiisa loo dhiiba maxaad ka taqaanaa shaqadan lagu dhiibay adigu anuu ganacsiga waan ahaa gudoomiyihii deegaanka hore ceel bardana waan ahaa aad baan xagga ganacsiga maxaan ku nahay xirfada ugu leeyahay ragii aan karinayna hadda waxaan rabnaa inaan xirfadaanada ku hogaamino ragana runta sida hadda caalamka guud oo kale 4 sano aanu shaqada hayn oo maxaan ku raada xoolo wada dhoofineynay si fiican baan ganacsiga hawshiisa u aqaanaa gabbaraatigaana waan u bartay qalnahaana waan u bartay marka laga hadlayo dhinacyada kala duwan qof waliba marka xil loo dhiibo waxaad moodaa in marka hore bulshada uu soo jiidanayo kadib markii magaca iyo lacag uu yeeshana bulshada inta badan aan ka jawaabin fariimahoodii marka maadaama hadda aad doonaysaan inaad abuurtaan shaqooyin soo lagama yaabo marka aad wasaaradda intay kacdo goobta imika ay taagan tahay ay kasii durugto idinkii ganacsatada aada isku hor imaataan oo dhibaatooyin dhinaca isfahan abuurmo mar raba anaka ganacsi iska hor imaadmayno anagu ganacsiga inaan u shaqeynaan rabnaa inaan ka shaqaysano ma rabno ayakan wax u abuuraynaa ayakan wax maxaan ku raha u matalaynaa mataal hadda markaa laga soo qaado xoolaha ugu badan ee dhoofa waxaa iskale koonfur galbeed qudaarta ugu badan ee dhoofta waxaa iskale koonfur galbeed wax nacsi oo koonfur galbeed kaga soo noqdana ma jiro ayakuna inta badan way safiyaan oo way ku khasaaraan waxaanu rajaynaynaa in qolo walba fadhigeeda inta loogu yimaado waxeedoo aruursan halkaa lagaga gato say macaas ku helaan waxa la soo dejiyey xamar laga soo dejiyena waxay ku baxdeen lagu beesareeyo ee loo soo safriyo waa koonfur galbeed ninkii xoolihii dibadda geynayay ama qudaartii dibadda geynayay baa sokortii iyo bariiskii dibadda kasoo dabaqaadaya bakaaraduu la soo dhigayaa wuuna ka soo gaday wuuna ku gorogadaya marka xoolahaasoo dhan waxaan rabnaa inaan kala jeehino oon u danayno koonfur galbeed ganacsigeeda koonfur galbeed ganacsigeeda markuu lacag helo ayay dowladda koonfur galbeedda dhaqaale heli kartaa koonfur galbeed kama koobna oo keliya magaalada baydhabo wasiir kastaba haddii uu isku soo koobay magaalada baydhabo yaa u mas-uul ah bokool iyo shabeellaha hoose bokool beritaan u socdaan xafiiska kasoo furayaa shabeellaha hoosena xafiiska waan ka furnay oo waan soo marnay maxaan ku rahdaa degmooyinkana 18 degmo ay ka kooban tahay maxaan ku rahdaa koonfur galbeed inaan gaarsiino rabnaa xafiiska ganacsiga haddii aan la idmo sida ugu dhaqso badan gobolka shabeellaha hoose waxaa laga tiriyaa gobolada koonfur galbeed 3 gobol ee ka kooban inuu ka dhaqaalo badan yahay marka wasaaradda maxaa ugu qorshaysan gobolkaasi gobolka waxaa nooga qorshaysan saad ogtahay gobolka cilado badan baa ka jira oo maxaan ku rahdaa dhinaca nabadgelyada hase ahaatee ooma fadhiyayno maxaan ku rahdaa nabadgelyo xumo ooma fadhiyayno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha inaan oo kasii horumarino sida hadda uu yahay oo waxyaabaha dadka dhibaatada haysa waxaa weeye si tafaariiqay wax u safriyaan si dhaqiisa wax lagaga qaataa xitaa waxaa suuro galaysay waxa ka dhoofa dekeda sida hadda liintoo kale kiiladii ama kiishkii maxay ku liinan dhoofinayo jambalka xamar wuxuu ka qaadanaya $2 wax koonfur galbeed kaga soo noqonayana ma jirin waanu diidnay arrintaas heshiinta sidoo kale ahayd maxaan ku rahdaa wixii kale la dhoofinayo noocaasoo kale ahayd waxaa weeye gobolkan ilaahay baa qani ka dhigay laakiin dadkiisu ooba ama qaabku qalinimada